الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الذين هم خير صحب وآل. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها طريق السعادة في الدارين، واشكروه على ما أسبغ عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها هذه المواسم العظيمة والأيام الفاضلة. تالله إنها مغنم للطائعين وميدان لتنافس المتنافسين. walaalayaal, waxaynu joognaa maalmo aad iyo aad u qaali ah. waxaynu khudbaddii hore isku baraarujinay camalka la qabto maalmahani fadliga uu leeyahay iyo inay nala gudboon tahay ayuha almuslimuun aad iyo aad inaynu u baraarugno aynu dadaallo. cibaadada iyo khayrka wixii aynu hore u haynayna aynu sii gigijinno oo aynu hagaajinno, wixii kale aynu ku dari karana inagoo weliba dadaalayna inaynu ku kordhinno o aynu ku darro, si fursaddan qaaliga ah aynu uga faa'iidaysano dhayal aanay inoogu dhaafin. acmaasha fadliga badan ee lagaga faa'iidaysanayana soomku inuu ka mid yahay baynu isxasuusinay. walaalayaal, maalmahan qaaliga ah waxaa ka mida yowmu carafa, maalinka carafa ee bishan dilxija ay 9 tahay. maalinkaasi waa maalinkii ilaahay tilmaamay inuu diinta dhammaystiray. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina. maalinkaa machuudka ahaa ee markaa la joogay ilaahay uu sheegay inuu diinta dhammaystiray iyo islaamnimada, wuxuu ahaa maalin jumco ah oo rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalama carafo uu taagan yahay. maalinkani walaalayaal, carafa waa maalinka ilaahay jalla wacalaa uu ka xoreeyo naarta in badan oo addoomihiisa ka mid ah. waqad habata fi صaxiixi muslim ana nabiya salى allahu calayhi wasalama qaal ma min yowmi akhara min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaari min yowmi carafa. maalinka ugu badan ee ilaahay addoon uu addoomihiisa ka mid ah ama addoomihiisa uu naarta ka xoreeya waa maalinka carafa. maalin ma jira ilaahay uu addoomihiisa xaggooda naarta uga xorayn badan yahay maalinkaasi carafa. dadkaa naarta laga xoraynayaana dadka xaja ee carafo taagan oo keliya maaha yaa cibaad allah, bal sida ibnu rajab alxambali uu tilmaamay raximahu llah, waa caamun lijamiici lmuslimiin. dadka muslimiinta ah oo dhan ayaa deeqdaasi iyo fadligaasi uu caam u yahay. walaalayaal, maalinkaa carafa in la soomaa aad iyo aad bay muhiim u tahay. dadka xajka jooga ee carafo taagan mooyaane dadkeennan kale aan xajini waxaa sunno weyn u ah inay maalinkaa soomaan oo cibaadadaasi ay ilaahay jalla wacalaa ku caabudaan. markii rasuulkeenna la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama fadliga maalinkaasna wuxuu sheegay yukafiru sanata almaadiyata waalbaaqiya, in lagu dhaafaayo dembigii qofka ka dhacay sanadkii hore lasoo dhaafay iyo ka soo socda. ka aan la gaadhinna macnuhu wuxuu noqonayaa ama ilaahay baa jalla wacalaa kaba ilaalinaya dunuubta iyo macaasida, haddii ay ka dhacdana ilaahay baa jalla wacalaa u dhaafaya. maalinkaasi carafa
qofkii ilaahay gaadhsiiya ducada waa inuu aad iyo aada ugu dadaalo oo ilaahay uu baryo oo rabbigii uu weydiisto inuu naarta ka xoreeyo waa inuu badiyo xuska ilaahay jalla wacalaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo takbiirta allahu akbarta waa inuu aada iyo aada u badiyo weeye walaalayaal